shacabka muqdisho oo mashaakilo fara badan horay ula daaladhacayay ayaa maalmahan dambe waxaa dhib weyn oo halis nololeed ah ka soo food saaraysaa korontada inta badan guryaha muqdisho isticmaalaan ee shirkadda beeko xilligelinkii dambe ee jimcihii aan ka soo gudubnay 15 qof ay ku dishay maanso ka dhalatay baallaha shirkadda beeko oo ku soo dhacay xaafadda cusub ee daarusalaam ee degmada yaaqshid ayaa maanta isla korontada shirkadda beeko waxay dab xooggan ka kicisay xaafadda siliga ee degmada wadajir sida idaacadda shabeelle uu xaqiijiyey milkiilaha guriga uu ka bilowday dabkaasi oo lagu magacaabo cabdidheere waxaa ku basbeelay gurigiisa iyo 3 guri oo kale oo ku yaalla isla xaafaddaasi siliga mashaqadaasi ay geysatay korontada beeko ayaa waxaa alla mahadi laga badbaadiyey carruur yaryar oo guryaha gubtay ku jiray xilliga dabkaasi uu kacayey waxaa xusid mudan sida milkiilaha uu noo xaqiijiyey in markii dabku bilaabanayay ay u qayla dhaamiyeen shirkadda beeko si korontada loo jaro islamarkaana aysan dheg jalaq u siinin catawgooda guriga dhow dambasu noqdo hal shay oo ay ka gurtadaan ogama badbaadin guryo kaloo deriska hayana waa gubtan haa wallaahi waa dhowr guri waayo saddex reerooba kaloo meelaha korontada sabab ah beeko taasaa beeka macnaha koronta maasadu ay ka kacdo markaan weliba dhahayna naga jara war naga jara baalla xagteena ay saaran yihiin oo islaanta intay ku qayliyeen dadoo dhan ku qayliyeen maxaa kuwa maamulka si telefoon loo diray naga qaban waayeen halkaasaa dambe musiibadaasa ilaahay markaa nagu bedelo shaqaaluhu waa joogeen baalla xagteena ay saarnaayeen kaalay naga jaray yidhaahdeen war naga jara dadka deriska o dhan ku qayl war kurigaan korontaa qabsatay kaalay ka jaray ay yidhaahdeen marka waa nagu dhegaysteen maruu gurigii gubtay intay yimaadeen ay jareen sida dhibanahaasi gurigiisa ay basbeelisay korontada beeko uu xaqiijiyey howlwadeennada shirkadda beeko ayaa indhahooda ka fiirsanayey xilliga hantidiisa iyo dad Soomaaliyeed guryahooda ay ku basbeelayeen korontadaasi beeko khubaro arrimaha dabka ah ayaa qaba halista soo noqnoqotay ee shirkadda beeko oo ah shirkadda ugu weyn ee inta badan dabka ay ka qaataan guryaha iyo goobaha ganacsi ee muqdisho in ay ugu wacan tahay in ay ka shaqeeyaan shirkaddaasi dad aan wax aqoona u lahayn xirfadda dabka kuwaas oo qaarkood la sheego in ay yihiin dhallinyaro miyiga inta laga keenay qaab garab ah looga howlgeliyey shirkaddaasi kadib markii tababarro aan buurnayn la siiyey kuma koobna guryaha danyarta meelaha laga dareemay cabsida korontada beeko mar sii horraysay intiinii la socotay ee ka dhegaysatay shabakadda warbaahinta shabeelle waxaa korontadaasi ay dab ka kicisay guriga wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowaa sida shabeelle uu xaqiijiyey taliyaha booliska gobolka Banaadir Bishaar Abshir Geedi tani ayaa loo arkaa mas'uuliyad darro ay xambaarayaan dhibaatadii bini'aadanimo ee ka dhalatay mas'uuliyiinta shirkaddaasi beeko reer muqdisho ayaa ku qasbanaaday in ay u nuglaadaan halista shirkadda beeko maadaama ay shirkaddaasi majaxaabisay ganacsatadii kale ee lahaa shirkadaha iyaguna bixin jiray dabka oo xilligii ay shaqaynayeen dadku khiyaar u lahaa in ay u beddeshaan meel kale haddii uu qanci waayo adeegga shirkadda dabka siiso haddaba dhibaatooyinka inta badan 3 milyan ee muqdisho deggan kala soo gudboonaanayso khatarta korontada shirkadda beeko ayaa laga wada dhursugayaa waxa tallaabo ah oo arrimahan wax looga qabanayo ee uu ka qaato maamulka gobolka Banaadir oo qudhiisa ay daashatay deminta dabka ka dhasha korontada beeko